Taariikhdu waa muraayad laga dhex arko masiirka ummadaha. Inkastoo ay dadku iloobaan, haddana dhacdooyinku way soo noqnoqdaan iyagoo xambaarsan casharo xanuun badan. Maanta waxaynu dib u milicsanaynaa mid ka mid ah boogaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. Waa Jamhuuriyadda Biafra iyo qarankii fashilmay isagoo aanan weli dhalan. Maanta Geeska Afrika waxaa ka aloosan xaalad taas la mid ah. Hargeysa waxay u dabaaldegaysaa aqoonsi uga yimid dhanka Israa'iil, laakiin ma yahay bilowga guul dhab ah mise waa dhalanteed lagu marin habaabinayo rabitaanka shacabka. Sanadkii 1967 gobolka bariga Nigeria dhacay ee Biafra ayaa ku dhawaaqay madaxbannaani kadib markii uu dalku galay qalalaase siyaasadeed iyo afgambiye isdaba joog ah. Qalalaasahaas ayaa dhalay tacadiyo baahsan iyo xasuuq lala beegsaday shacabka deegaankaas, taas oo ku qasabtay inay aayahooda ka tashadaan. Maamulkii Biafra waxa uu muddo kooban gudaheeda ku dhisay hay'ado dowladeed oo dhammaystiran iyo ciidan naftood horayaal ah oo u taagan difaaca jiritaankooda. Xilligaas waxaa garab istaag iyo taageero u muujiyey dowladda Israa'iil oo markaas uun ka soo guulaysatay isbahaysigii Carabta ee dagaalkii 6 maalmood. Dowladdii Israa'iil oo xiriir qoto dheer la lahayd hoggaankii gobolkaas waxay u fidisay taageero aan caadi ahayn. Inkastoo Tel Aviv ay ka gaabsatay inay si rasmi ah u aqoonsato madaxbannaanida maamulkaas, haddana waxay u dirtay hub, qalab militari iyo khubaro dhanka dagaalka ah, iyagoo u arkayay dadka Igbo inay yihiin xulafo istiraatiiji ah oo ku dhex yaala wadnaha Afrika. Balse taageeradaas ma noqon mid u goysa warqadda aqoonsiga ee Qaramada Midoobay. Haddii aan isweydiino maxay Biafra u fashilantay, maxaa u saamixi waayay inay fadhiisato kursiga Qaramada Midoobay iyadoo haysata taageerada Israa'iil iyo aqoonsiga dalal dhowr ah? Jawaabtu waxay tahay dunidu ma aqoonsato qaran ka dhex dhashay qaran kale haddii aan la helin tanaasul ka yimaada dowladda dhexe iyo oggolaanshaha ururada gobolka. Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay waxay Biafra u arkeen khatar ku socota xuduudaha qaaradda. Gudoomintii lagu soo rogay iyo aqoonsi la'aantii dunida inteeda kale waxay keentay in garab istaagga Israa'iil uu noqdo mid aan waxba ka bedeli karin masiirka malaayiin qof oo macluul iyo dagaal ugu dhex dhimanayay gudaha Biafra. Ugu dambeyn, 1970kii riyadii Biafra waxay ku dambeysay isdhiibid iyo burbur. Halkaas waxaa ku jira cashar lama huraan u ah Somaliland. Aqoonsigii dhawaan ka yimid Israa'iil ee loo arko mid taariikhi ah waxaa ku gadaaman daruuro madow. Taariikhda Biafra waxay noo sheegaysaa in hal dal ama 2 dal oo ku aqoonsada aysan siin karin sharciyad caalami ah haddii ay ka soo horjeedaan dariskaaga iyo ururka gobolka ee aad ka tirsan tahay. Somaliland waxay maanta u muuqataa inay ku socoto waddadii Biafra iyadoo haysata aqoonsiga Israa'iil, haddana waxay wajahaysaa diidmo qayaxan oo kaga imaanaysa Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ma laga yaabaa in aqoonsiga Israa'iil uu noqdo dabin diblomaasiyadeed oo Somaliland ka fogeeya dunida inteeda kale, kana dhiga qaran fashilmay isagoo aanan weli dhalan? Qarannimadu ma aha calan la tolo ama aqoonsi ay dowlado gaar ah ku siiyaan, ee waa isfaham dhex mara dowladda dhexe iyo aqoonsi ka yimaada bulshada caalamka oo dhan. Biafra waxay guul daraysatay iyadoo haysata aqoonsiga 5 dowladood kuwaas oo kala ah Tanzania, Gabon, Ivory Coast, Zambia iyo Haiti, iyadoo ay u sii dheer tahay Israa'iil oo gaashaan aan caadi ahayn u ahayd. Hargeysa ma ka baran doontaa in aqoonsiga dhabta ahi uusan ka iman doonin Tel Aviv, balse uu ku iman karo oo keliya is-afgarad iyo heshiis dhex mara Soomaaliya inteeda kale. Magaciigu waa Cabdicasiis, channelkuna waa Caza Insights. Nabadgelyo.